guddiga xulista komishinka xuquuqul aadamaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo ka kooban 7 xubnood ayaa kulankoodii ugu horeeyay ku doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen muddada ay hawshaasi hayaan iyagoo gudoomiye u doortay Dr. Axmed Saleebaan Jaamac halka ay gudoomiye ku-xigeen ay u doorteen garsoore Cabdiraxmaan Xasan Nuur xogayaha guud ee golaha guurta ee jamhuuriyadda Somaliland أنا حقيقة جدي صاحب لست حبناها كمشي كحقول هذا ما قرن كجمهورية سوماليلاند عبد الناصر آدم بيكسي أيها كور رمي كلن كاسي طبعا كبش اللحاد لبعض كل يصدق يلا باتنكا وأمانين صبتيا وحكون كودي بهري سويبي جدي جو مجعبين بدحوينه حرست كمشي كحقوق هذا ما قرن سيدا كعاد حير نقر سجالية صدّن لبكرية طبعاً كدي داسي أو كتمادة إنستيوشن كردوان تاسم بدحوينو مركو أركي إنه متحلات كنا ماضي كدي دا كمشي حقوق آدمها ووجد بيه قرالله أي كسر مجعبيان حبنيه متلي لها كدي دا حرست كمشي كآدمها بدحوينو حقوقه ضدي كلها بورتي ده oo soo magacaabo laba xildhibaan waxa kale uu madaxweynuhu qoraal u diray maxkamadda sare oo soo magacawda laba garsoore guddidaasi oo madaxweynuhu dikreeto ku soo saaray waxay magacyadoodu kala yihiin kow maxamed cabdiraxmaan cali laba axmed saleebaan jaamac saddex cali xasan cawaale saddexdaa xubnood madaxweynaha soo magacaaba sida uu xeer mushtigayo sida inuu sheegnay kuwii kalaba institutionada dawladda ay ka marayaan guddidu waxay ka koobantahay 7 xubnood xubnaha ka yimi golaha guurtida waa xildhibaan maxamuud xareed rooble iyo xildhibaan axmed nuur aw cali aadan xubnaha garsoorka ka yimi waa garsoore cabdiraxmaan xasan nuur iyo garsoore cabdiraxmaan xuseen caynaan sidaasay ku yihiin guddidu 7 xubnood iyo xogayaha guud oo waa xoghayn sida uu dhigayo xeerku laguna soo hagaajin doono araajida ugu horeyn fadhigoodii waxay guddigu doorteen qaab dhismoodkoodii oo ahaa gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen muddada ay shaqada hayaan waxaanay gudoomiye u doorteen Dr. Axmed Saleebaan Jaamac halka ay gudoomiye ku-xigeenna u doorteen garsoore Cabdiraxmaan Xasan Nuur sidaa darteed guddidu waxay soo saareen wargelintan abuurista xafiiska komishanka xuquuqda aadamaha ee muddada 5 sanadood ee soo socda iyadoo uu dhamaaday guddidii hore mutaxileedkeedii sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay in cid kasta oo danaynaysa komishanka xuquuqul aadamaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland ay u furan yihiin codsiyadu isagoo intaasi raaciyay shuruudaha looga baahan yahay muwaadiniinta danaynaysa komishanka xuquuqul aadamaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland haddaba guddiga xulista komishanka xuquuqda aadamaha ee madaxweynuhu magacaabay waxay ogeysiinayaan dhammaan muwaadiniinta danaynaya inay u tartabaan xubinimada komishanka xuquuqda aadamaha ee qaranka jamhuuriyadda Somaliland inay furan tahay qabashada araajida codsiga xubnaha komishanka iyadoo looga baahan yahay xubintu inay soo buuxiso shuruudahan kow codsi shakhsi ah oo ah taariikh nololeedkiisa CV-ga taxanaha waxbarashadiisa laba nuqulka shahaadooyinka waxbarashadiisa nuquladiisa saddex nuqul kaarka aqoonsiga waayo waxa shuruudaha ku jira inuu qofku yahay muwaadin Somaliland u dhashay afar laba sawir oo kura oo hadda shan warqadda dambi la'aanta lix warqadda caafimaadka toddoba daahan waa inaanu ka yarayn sida uu xeeku jideynayo 3 jir waxa ka reeban sidoo kale xubinta u soo tartamaysa komishankan inaanu ka mid ahayn ciidamada qaranka noocyadiisa kala duwan inaanu ka mid ahayn hay'adaha garsoorka inaanu ka mid ahayn shaqaalaha dawladda sitaanaha hadduu shaqaale dawladeed ahaa inuu warqadda ka soo ruqsadeeyay shaqada warqadii ruqsadda 6 bilood ka hor maalinta la shaaciyay afar وإنه كتر سنين قرياش الديجان كا شن وإنه كتر سنين قرياش الجورتي ده يو كيلا لح وإنه كتر سنين حبنا حسبية فرينتا جدية فرينتا حسبية وإنه كترين وإنه كم صداق كلا كم ده هاي كلها وسيلة ده
qodobka saddexaad ee muhiimkii waxa weeyaan araajida codsigan doonaysa iyo dokumentiyada qofka uu tartamaya xubinimada xafiiska komishanka xuquuqda aadamaha wuxuu ku soo hagaajinayaa xafiiska xogayaha guud ee golaha guurtida laga bilaabo maalinta salaasada ee ay taariikhdu tahay 13 bisha 6 2023 waxaanay soconaysaa muddada araashida la qabanaya 15 cisho waxaanay xidhmayaan 27 bisha 6 2023 saacadu markay tahay 12 duhurnimo